Ra'iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed ayaa sheegay in horumarinta wadooyinka magaalooyinka dalka ay abuureen fursado shaqo isla markaana kor u qaadeen dalxiiska. Magaalada Jigjiga ayaa mashruuc cusub oo 20 kiiloomitir ah oo wadooyin ah oo wax weyn ka bedelay muuqaalka magaalada iyadoo lagu daray wadooyin lugta iyo baaskiilada loogu talagalay goobo cagaaran oo 5 hektar ah iyo 5,000 oo geed oo la beeray. Wadada weyn ee magaalada ayaa sidoo kale ballaaratay 6 xariiq halka nidaamka tuubooyinka biyo-mareennada la hirgeliyay. Waxaa intaa dheer magaalada waxaa lagu rakibay in ka badan 35 kaamiradood oo CCTV ah si loo xoojiyo amniga, halka jardiinooyin iyo goobaha bulshadu ku nasato dhismayaashoodu socdaan. Dhanka kale, xarunta dalxiiska Shabeelle ee ku taala deegaanka Soomaalida ayaa maraysa heer gabagaba ah iyadoo ku fidsan dhul dhan 385 hektar oo qiyaastii 29 kiiloomitir u jirta magaalada Jigjiga. Mashruucan ayaa qayb ka ah barnaamijka dhismaha jiilka ee lagu horumarinayo dalxiiska gudaha dalka. Ra'iisul Wasaare Dr. Abiy Ahmed oo goobta booqday ayaa sheegay in xaruntan dalxiiska cusub ay door muhiim ah ka ciyaari doonto kobcinta dhaqaalaha deegaanka, isla markaana ay u furayso fursado cusub oo dalxiis oo dhanka deegaanka Soomaalida ah. ዛሬ በጅጅጋ ከተማ ነው የምንገኘው። ጅጅጋ ከጥቂት ጊዜ በፊት መተን የመጎብኘት እድል ነበረን። maanta waxaan joognaa magaalada Jigjigada waqti ka hor oo aan soo boqday iyo Jigjigada aan maanta aragno aad bay u kala duwan yihiin. 60 kiiloomitir gudaha magaalada ayaa la dhisay marka laga yimaado Bahardar, Adama iyo Hawassa. Magaalo Jigjiga u dhiganta inay jirto ilama aha, gaar ahaan markaan eegno guriyeynta 5 magaalo amaba 10 magaalo ee ugu waaweyn ayay ka mid noqotay Jigjiga.